geeriduna annaga ayaa ka naxayna ma ahane geeridu waxa weeye mucaanaqatu li rahmatillah ilaahi rahmadiisi iyo jannadiisi oo la luqmaysanayo weey waa jannadii ilaahi oo la luqmaysanayo rahmadii ilaahi maxaa yeelay janno geeri baa ka horeysa janno iyo rahmadii jannadii ilaahi muuminiinta u diyaariyay daartan daarul aam daarul jazaa daarul amal marin maahan daartan daarta amalka weey amalkii ay soo guteen amal markiisii marka maanta qofku soo shaqeeyo soo asirkii marka ay too shaqada u dhamaato joornaatiisa soo maqaato joornaatada markay qaadanayeen markay dhabanayeen way bay u bilaabanaysaa joornaatada runta ahayd malaa'ig baa nabigu wuxuu yiri qofka muuminka ah wanaagsan nafta laga qaado ilaa laba reexaan jannada looga keeno laba reexaan oo arfoon baa loo keenayaa reexaantaas uu ursanaya udug jannada laga keenay way udug adduunka yaal maahan barafuunka sanka loo saaraya asagoo caraftiisa ku maqan nafta laga qaadaya waxa uu iimaanaya allahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirati bishaara iska leeyihiin bishaaradu waa maxay mid adduunka idaade mid aakhirada baa waxay u bilaabanaysaa markii naftu ku soo xaadirto jannada waa loo balqayaa loo rahay manzilkiina waa kana malaa'ikatu rahma u iimaanaysa malaa'ikatu rahma u iimaanaysa oo galbinaysa arwaaxdii muuminiinta ayaa u iimaanaysa anbiyadii baa soo booqanayaan dadkii ku amalka ah u iimaanayaan nin saxaabi ah oo waxa weeye naftu ay ka socoto ayaa waxa u yimid asxaabtii la joogta ayuu suu u maqnaa si qof miir la oo kale muunta soo fariiso soo miir yeeshay ayuu dad waxa loo joogay salaam wa alaykum asalaam gacanta la galay hadhow waa la yiri maxaad aragtay 100,000 oo wuxuu yiri anbiyada nabiga uu kamid yahay ayaa ay timid bi oo salaamahay 100,000 baa ay timid bi oo galbin ugu timid bishallahumul bushra way bishaara weyn bay iska leeyihiin qofkii ilaahay uu waafajiyo allahna waafajiyo ilaahay baa yiri lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirati bishaara iska leeyihiin dadka awliyada ah oo mutaqiinta ah fi dunya wal akhirati la tabdila li kalimatillah la khulfa li kalimatillah ilaahay kalimaadkiisa iyo wahiisana wax burinaya ballanka baxay ma jirto ilaahay ballanta uu gala ka bixmay uu oofinaya bishaaradaas ilaahay buu siinaya adduunkana uu ku siiyo bishaarada ku jireen maxaa yeelay nabigeena arku iska leeyahay nabiga ma xal ku riyooday waxa weeye saxaabi heel baan arkay nabi heel baan xal arkay malag heel baan xal arkay jannadii waxa weeye xuruucayntii baa ila hadashay hada qofkii asagoo aan xabad ka arag waa iska inkaraya moogta qofkan xabad ka arag asagoo iska inkaraya laakiin qofkii wax yar laga ursiyay inta kalena waa qiraya ilaahayna ma qadiyo qofkii la qadiyo asagoo iska inkaraya qofka hadda dad hadii aad tiraahdeed sibir ma taqaan wuxuu leeyahay sibir wuxuu yahay waxaan arag ma taqaanid wax macaana u sheegaysa waxaas maxay yihiin ma yaqaanba